عليكم ورحمة الله وبركاته. hadduu ilaahay raad waxaan ka hadlaynaa lagjaradeen imtixaanaha ahaa clinical reflection. maanta hadduu ilaahay raad waxaan ka hadlaynaa astigmatism waa nooc ka mid ah refractive errorka, waana noocyada ugu badan ayuu ku jiraa. midka ugu horeeya ee ugu weyn waa myopia, waxa kusoo xigo waa hypermetropy, midka saddexaad ee mostly dadka lagu arkana waa astigmatism. astigmatism ma definition ahaan markii laga hadlayo qeexitaan ahaan definition ahaan waa iftiinka isha soo gala, waa iftiinka isha soo gala in uunan focus meel inuusan ku dhicin. hypermetropy waxaan soo dhahnay iftiinku wuxuu ku dhacayaa behind, halka myopia aan soo dhahnay in front. laakiin iftiinka isha soo gala inuusan meel focus karinin sida normalka isha, waa ujeedaan iftiinka isha soo gala wuxuu ku dhacaa retina toos ku dhaca. laakiin astigmatism markii patientiga iftiinka isha markuu soo galo meelo oo difference meridian ku kala dhaca. marka sawir ahaan waa kaas, sawir ahaan haddaan idinkugu tuso, mid waa kaas astigmatismka, mid wuxuu ku sameysmay in front ayuu ku sameysmay, wuxuu ku sameysmay in front oo qaybta hore retinaha ka sameysmay. kan waxaa loo yaqaana astigmatism oo myopia astigmatism oo kanne waa behind ayuu ku sameysmay oo astigmatism hypermetropy waa. marka mid walbo waa usii kala qaadna ilaahraada mise nooc ayaa jiro. noocyada jiro laba nooc, noocyo aad u tiro badan ayuu leeyahay, laakiin labada nooc ayaa ugu caansan. midka kood waxaa la dhahaa regular astigmatism. regularka waa xaalad aad mataqaana waa xaalad oo labada meridian ee right angle ay yihiin, labada meridian ee right angle ay yihiin oo 90 angle ay right ku yihiin, waana nooca ugu badan ee astigmatism la arko. irregularka laakiin markii laga hadlayo meridianka, labada meridian right angle maaha, oona separate mana sameynayaan xagal oo 90 degree ma sameynayaan, waana kan noocan aad uma badno. right angle markaan leenahay waxaan ka wadnaa meridianka vertical iyo horizontal meridian. vertical iyo horizontalka waxaa la rabaa right angle inay yihiin la rabaa, laakiin haddiisan right angle aysan ahayn oo mataqaana tusaale ahaan haddii oo saan camal ay yihiin oo right angle aysan ahayn, waa marka noocyada ku kala duwan yihiin, laakiin waa nooca ugu badan waa regularka ugu badan. laakiin marka laga hadla irregularka oo aan soo sheegnay right angle ma aha aan dhahnay, clinical ahaan markii la dhahayo waxaa loo yaqaana irregular cornea. clinic ahaan markaan isticmaalayno waxaa dhina irregular cornea. corneada ma aha regular toos oo sax maaha. tusaale ahaan keratoconus patient, keratoconus patient maxaa la dhahaa corneada sax maaha, corneada normalka saasaa loogu talagalay inay curvature ay leedahay ee saas u toosantahay. laakiin dadka keratoconuska maxaa ku dhacaya corneada saasay noqonay oo sidaas oo mudacad camal ay noqonaysaa. marka si sax ma aha, marka regular ma aha, waa irregular waa corneada. maxaana sababa marka waxaa sababa trauma jug inay soo gaarto, waxaana lagu daaweeyaa keliya markay patientiga uu yahay corneada irregular ay tahay, rigid contact lens lagu daaweeyo. tusaale sawir ahaan haddaan idinkugu tuso regularka irregularka, qofkani astigmatism ma qabo sooma, waa kan no astigmatism. laakiin qofkan astigmatism ayuu qabaa, noocuu qabana waa regular, waa saxan tahay, waa kan si fiican ayuu u saxan tahay. laakiin midkani irregular oo waxaa maqan meridian oo 90% aa maqan, 90 angle maqan. marka saddexdan nooc sawir ahaan intaas ku tusnay. sidoo kale sawirkan kale asigana kan waa sax oo meridianku wuu dhammaystiran yahay, soo ujeedaan meridianku wuu dhammaystiran yahay. kan laakiin waa mataqaana qayb dhan ayaa maqan oo irregular. types kale ayaa jiro, typeska ugu caansan aan dhahno oo mostly la arko waa regular sooma. regularka asaa waxaa loo sii kala qaadaa noocyo badan. regularka waxaa ugu horeeya with the rule. with the rule maxaa waa labada meridian aad soo sheegnay oo hore usoo sheegnay waa right angle waa, laakiin midka verticalka ah ayaa more curved ah markii loo fiiriyo midka horizontalka ah. midkani against ruleka asigana waa horizontal meridian, waxaana more curved ah verticalka oo ah opposite isku yihiin against iyo withka. midkan kale oblique asiga not horizontal and vertical meridian waa asort maba ahaba vertical iyo
horizontal maba ahaba. tusaale ahaan horizontal iyo vertical meridian markaan dhehna saan waa, laakiin kan maba ahaba oo with oo oblique oo wuxuu noqonayaa saan ayuu noqonayaa sawir ahaan sida normalka saan ahayd mugta sawir saan camal noqonaya. marka kan lama dhihi karo horizontal waaye, lama dhihi karo oo wuu ka gedisan yahay. kana waa vertical oo lama dhihi karo oo right angle ma. marka right angle-kiisa waa 45 inta udhexeysa ilaa 35. midkan kale xiga waa by oblique, labada inuu noqdo by oblique oo astigmatism ah oonan ahayn not right angle oo meridianka ah, waxaana udhexeeyaa 30 ilaa 100. normalka waxaa laga rabaa marka 30 inay ku aado 30 angle markay tahay waxaa la rabaa 100 iyo 135 160 meelahaasaa laga rabaa. laakiin haddii 30 ay tahay 100 ay tahay macnaha meridian aad iyo aad u tiro badan ayaa ka maqan meesha oo right angle sax maaha. noocyada aan weli waxaa ku jirnaa noocyada ay leedahay waxaa soo sheegnay regular iyo irregularka. regularka sii kala qaybino 4 nooc oo sii kala qaadnay. nooc kale sii jira types kale markii la fiirinayo depend on the light on the retina, light iftiinka oo kaga dhacay retinaha. waxaa jira noocyo aad u tiro badan. midka ugu hore waxaa loo yaqaanaa simple astigmatism. simple astigmatism wuxuu noqon karaa kaliya saan markuu yahay, kaliya wuxuu noqon karaa inta inuu noqdo inta inuu noqdo minus inuu noqdo oo myopia ama inta inuu noqdo hypermetropia oo plus inuu noqdo, kaliya halkaas nooc bas ayuu noqon karaa. laakiin compound markii la dhaha midkan kaliya wuxuu noqon karaa inuu -1 u noqdo ama inuu plus u noqdo. kaliya simbalka waa ama inuu noqdo hypermetropia oo simple astigmatism ah ama inuu noqdo myopia. markii laga hadlayo compound oo nooca labaad, compound wuxuu noqonayaa labadaba wuxuu noqonayaa minus, labadaba minus ayuu noqonayaa. labada meridian oo horizontal iyo vertical wuxuu noqonayaa minus ama wuxuu noqonayaa labadaba inuu noqdo plus oo hypermetropia inuu noqdo, labadaba plus oo hypermetropia inuu noqdo. sawir ahaan qoraal ahaan inuu si fiican u qormayna laga yaaba, laakiin labada meridian inuu noqdo inuu labadaba minus isla noqdo oo myopia ama inuu isla noqdo plus oo hypermetropia. nooca saddexaad waa mixed inuu noqdo. mixed sawir ahaan hadda idinkugu muujiyo isigana inta wuxuu noqonayaa waa isku jir, waa mixed waa isku jir inuu noqdo hypermetropia iyo myopia. inta wuxuu noqonayaa -1 diopter ayuu noqonayaa, intan wuxuu noqonayaa +1 diopter. saas ayuu noqonayaa. marka tusaale ahaan waa kaas inta depend on the light position. marka maxaa sababa marka qofkan in iftiinka isha soo gasho oo meel focus gareynin, waxyaabaha sababa maxaa kamid ah corneal shape change inuu ku dhaco, cornea sida normalka ah inay mataqaanaa change ku dhaco oo isbedesho. normalka saa soo sheegna corneada saan waa oo curvature ayay leedahay. marka waa isha iftiinka soo gala difference meridian oo kala dhaca, marka meelo kala duwan ayuu ku dhaca haddii corneal shape change haddii jiro. midka labaad waa corneal ulcer, lacala haddii corneada problem uu ka jiro. astigmatism problemkiisa ugu badan 90% waa corneada. corneada hadduu problem uu ka jiro mataqaana astigmatism ayaa qofka ku sameysmaya. sidoo kale corneal ulcer sida dadka qaliinka markii la sameynayo cataractiga haddii dhaawac corneada la gaarsiiyo astigmatism lagu arkaa. problems of cornea guud ahaan corneada problemka ku dhaca qofkaas wuxuu ku sababaa astigmatism. sidoo kale waxyaabaha kale cause gareeya waa unknown waa. ugu dambeyntii congenital dadka waxaa la dhahaa some degree oo waxaa lagu arkaa astigmatism marka qofka uu dhasho kadib ayaa mostly dadka lagu arkaa. waxyaabaha sababa ayay tahay calaamadaha waa difficult focus, qofka inuu wax focus gareeyo oo waxa si fiican u fiiri way ku adagtahay. tusaale ahaan gaarigan oo ujeedaan qofkani astigmatism with astigmatism ayuu qabaa, astigmatism ayuu qabaa qofkani astigmatism qaba. nalalka gadaal iftiinka gaariga nadiif ayuu qofkan u arkaa, laakiin qofkani waxaa kasoo muuqanaya nalalkii waxyaabo kale oo mataqaana iftiino kale la soo socda ayaa socona. marka labadooda maxay ku kala duwan yihiin? marka waxay ku kala duwan yihiin midkaana iftiinka toos u dhaco retino toos ayuu positionkeeda ku dhacaa, kan laakiin waa meelo kala gedisan ayuu retinaha kaga dhacaya. tusaale ahaan nalkan camal, nalkan saa ujeeda isagana waa mataqaana focus ma ahan oo hal wax toos ma aha oo nalal mataqaana oo waxyaabahan zaid u tiro badan ayaa kasii babaxay. waa calaamadaha ugu caansan ee qofka astigmatism qab lagu arkaa. sidoo kale blurring vision aragtida qofka dhibta ayaa qofka la arkaa. madax xanuun aad u daran oo mataqaana high ayaa qofka lagu arkaya.
ugu dambeyntii calaamada qaaska oo leedahay astigmatismka waa qofka madaxa inuu qaloojiyo. Af Ingiriis ahaan waxaa head tilt inuu sameeyo, madaxa inuu qaloojiyo oo accesskaas sida u socdo. Maxaa lagu daaweeyaa? qaybta u dambeysa soo gaaray. waxaa lagu daaweeyaa cylindrical lens aa lagu daaweeyaa, ama ha noqdo minus ama ha noqdo plus, oo mataqaana myopia ama inuu noqdo plus astigmatism iyo minus astigmatism, labadaas waa lagu daaweeyaa oo cylindrical kaliya kan waxaa lagu daaweeyaa cylindrical. sidoo kale minus island soo sheegna minus iyo cylindrical kan lagu daaweeyaa. sidoo kale contact lagu daaweeyaa. contact isaga waxaa lagu daaweeyaa patientiga hadduu yahay 2 jir 2 sano ilaa 3 sano intuu dhexeyso uuna qabo regular astigmatism ayaa lagu daaweeyaa. rigidka nooca adag contact lens waa kasoo hadalnay, 2 nooc ayay leedahay, hard iyo waxay kaloo leedahay soft, ama rigid ama soft ay leedahay. rigidka waxaa lagu daaweeyaa 2 sano jir ilaa 3 sano jir regular hadduu yahay. soft waxaa lagu daaweeyaa only waxaa lagu daaweeyaa later astigmatism, inta markay yartahay ayaa lagu daaweeyaa astigmatismka. hadduu qofkan uu qabo high astigmatism waxaa lagu daaweeyaa toric lens loo yaqaan toric ay lagu daaweeyaa. ugu dambeyntii xaaladahaas dhabarka laga soo tago oo wax mataqaana patientiga loogu qabo waay surgery ayaa lagu daaweeyaa. waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada video. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.